in aad fanka caawa adigoo maxaan ku raada hore uga baxay inaad u cadeyso dadka maxaan ku raada youtube-ka ku jiro oo videogaaga daawo doono inaad fanka ka baxday iyo waxaad ka codsan lahayd insha allah. marka maxay ahaydeen wani waan ka baxay marka waxa waa aniga waa buugaas waa soo xiray isoo duceeya inuu faraj qeyr qabilaha isii furo. kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal meel kasta dunida dacalada ka joogtaan halkani waa Hubaan Media fadlan taawa calaamada subscribe-ta si ay ku soo gaaraan wararka iyo warbixinada halkan aan soo gelino. fanaanada caanka Saacadiya Siman ayaa ku dhawaaqday in gabi ahaanba fanka ay ka baxday. Saacadiya Siman oo wareysi siinaysa saaxiibadeed qaliladan ayaa xaqiijisay in fanka ay goor hore isaga baxday, sidaas awgeedna aanay asxaabteeda iyo taageerayaasheeda aanay la socodsiinin, sababtana ay ku tilmaamtay in haddii ay sheegtay iyo haddii kaleba heesaheeda ay ku jireen YouTube-ka, sidaas awgeedna ay ka gaabsatay. Saacadiya Siman ayaa tilmaamtay in sababaha fanka ay uga baxday waxa ugu weyn in ay ahayd go'aan iyadu ay gaadhay, iyo sidoo kale in asxaabteeda kale fanka ku jira sida qaliladan ay fanka ka saartay, sidaas awgeedna ay kula talisay in fanka ay isaga baxdo. Saacadiya Siman ayaa ku biiraysa fanaaniinta maalmihii ugu dambeysay sida weyn uga baxayay fanka, waxaana Saacadiya Siman ay ka mid tahay fanaaniinta dhalinyarada ah ee muddooyinkii ugu dambeysay fankeedu uu horumariyay, una muuqatay fanaanada gabi ahaanba taageero weyn kusii helaysay baraha bulshada, taas oo muuqaalada iyo heesaha ay soo gelisay YouTube-ka ay noqdeen kuwa ugu daawasho wanaagsan waqti xaadirkan. Saacadiya Siman waxay ku biiraysaa fanaaniinta maalmihii ugu dambeysay fanka ka baxay, taasoo ugu dambeysay qaliladan oo iyadana saaxiibadeed ah oo ay hadda isu meel joogaan magaalada Nairobi. Saacadiya Siman waxay sidoo kale taariikhdeeda iyo sidoo kale fankaba ay ku ahayd mid rabtay inay heerka gaadho, sidoo kalena ay caan ka noqoto, laakiinse fanaanada ayaa markii dambe waxay go'aan ku gaadhay in si degdeg ah ay go'aankeeda uga laabato, fankana uga baxdo, sidaas awgeedna uu noqday go'aanka dhabta ah ee hadda ay gaadhay, maadaama waqti xaadirkan fanku noqday wax xun oo aan lagu sii jiri karin. fanaaniin fara badan ay sheegeen in fanka aan waxba laga dheefin, laakiinse lacagta iyo sidoo kale waxyaabaha aad ka dheefta ay noqon karaan sida tii burcabadeeda oo kale, sida uu sheegay Maxamed Saciid BK. hase haatee fanaaniinta fanka ka baxaya hadda waxaa ku dhigan fanaaniin kale oo si khaldan ugu jeejeesaya, sidoo kalena ku tilmaamaya in lacag loo sheegay, sidaas awgeedna ay fanka uga baxayaan. waxaana maalmihii ugu dambeysay baraha bulshada si weyn u haystay fanaanada caanka ah ee Farxiyo Kabayre iyo Hodan Cabdiraxmaan, kuwaas oo ku jeejeesaya Maxamed Saciid BK, sidoo kalena ku tilmaamay in lacag uu soo qaatay, sidoo kalena uu ururo ka dhex wado fanaaniinta Soomaaliya dhexdeeda sidii fanka loo baabi'in lahaa ama gabi ahaanba fanka u noqon lahaa wax aan sii shaqaynaynin. geesta kale fanaanada waxay ka dalbatay dhammaan youtuberska in heesaheeda ay ka saaraan barta ay ku leeyihiin channel-dooda, waxaana sidoo kale fanaanada ay fariin u soo dirtay asxaabteeda iyo taageerayaasheeda kana dalbatay inay usoo duceeyaan, sidoo kalena usoo duceeyeen asxaabteeda fanka kusii jirta sida ay fanka iyagana uga soo bixi lahaayeen oo ay ugu dayan lahaayeen. waa wax aad loogu farxo in fanaaniintu ay maalmihii ugu dambeysay sida tusbaxa isaga soo baxayaan fanka, taas oo muddooyinkii ugu dambeysay welibana sanadkii lasoo dhaafay 2020 ugu yaraan 4 fanaan ay ka baxeen. sanadkan cusubna bilowgiisana waxaa ka baxay qaliladan, waxaana hadda ku xigta Saacadiya Siman oo ay saaxiib yihiin, taasoo alla wax loogu mahadnaqa ay tahay. waxaana sidoo kale fanaanada ugu duceynaa in alla subxaanahu wa tacaala uu gabi ahaanba cibaadada suuban iyo sidoo kale wanaaga ay gabi ahaanba ku go'aansatay inay fanka isaga baxdo in alla subxaanahu wa tacaala ku abaalmariyo. waxaana sidoo kale fanaanada Saacadiya Siman ay inta badan ahayd fanaanada baraha bulshada, gaar ahaan baraha YouTube-ka ay soo gelin jirtay muuqaalo heesahaas oo ay la soo qaadi jirtay fanaaniin kale oo si talantaali ay la qaadi jireen. waxaana sidoo kale fariin ugu dirtay oo ay u sheegtay in iyagana fanka ay isaga soo baxaan oo ay tahay meel xun oo nolosha aan wanaagsaneyn, aakhirada iyo adduunyadana ay kaga xumaan karto.
iyo hadhaale baanu hindisnaa buraanburiyo hees aheelo iyo cayaar dabaya haybad iyo hadhaale baanu hindisnaa ahurdadan ku yaalka hayraan naftayadan hurraa mahagrane waanu hawlgalaa murtidan hurinaa kala hufnaa ha qabtiraa u heedlanaa dadwaynahan hanuuninaa hasaawinaa danta u hagnaa dadwaynahan hanuuninaa hasaawinaa danta u hagnaa dadwaynahan hanuuninaa hasaawinaa danta u hagnaa taariikhda hidahan habaaska kaatiraa hanaankii aan ku soo dhaq taariikhda hidahan habaaska kaatiraa hanaankii aan ku soo dhaqmaynay baanu hilinaa lama huraan hilinka toosan baan dhalinta horgalaa mahagrane waanu hawlgalaa murtidan hurinaa kala hufnaa ha qabtiraa u heedlanaa dadwaynahan hanuuninaa hasaawinaa danta u hagnaa